السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حذيفة حكية channel كداوني سنة وحذيفة فلوكس كسر هذا channel كنا فضلا هذا channel كعصب تاي سبسكرايب نوصار فيديو قدرت كيشنا لايك نوصار ودما سنتي صاحبي كسر هذا مركلة channel كنا ولو أن بريهن كلا مشغولني عن حالة الدنيا نول قيبها برايفت كان كثير مشغولني حدنا مركلة كسر هذا برنامج جديد ظهرنا وقبرتين ما أنتوا يكدوا انتهي برنامج جديد هرين سمين شيني صوتها واحد وقبرتين إن قصوين صوتوبنا بس ما أنتوا حنوضع قصة وسؤال لكن قصة يلا بقصة واحد ربعنا أصحابتي ذا إيو بلشة الصومالية لو ذا جو سؤاشن واحد هاي وسؤالا مسكحلي دورت تجواب هو يبا يعني هو سكستون سكو فيديو كجواب كرباي سؤاشن واحد هاي ما حي تهاي سببتها ay ugu fashilmaan nolosha qoyska lamaanayaasha caanka ah waliba kuwooga soo bandhiga xiriirkooda ee bulshada la wadaaga xiriirkooda maxay tahay nolosha sababta ay cimriga jacaylkoodu u soo gaabto oo ay u kala tagaan markaaba ma isdhihi karnaa uu ka cimri iyo caafimaad dheeriyahay xiriirka kiisa qarsoon ee aan la soo bandhigin su'aasha marka jawaabtu waxay noqonaysaa maxay ku dhacdaa inay dadkan kala tagaan way jiraan xaalado badan oo lagu kala tago waxyaabo badan baa sababa balse sababta ugu weyn ee aan isweydiiyay markaan su'aashan isweydiiyay ay noqotay waxay la noqotay maadaama dadkan ay ku xiran yihiin dhalinyar aad u fara badan oo waliba intooda badan noloshan ay soo bandhigayaan kuwan marka xiriirka leh dadka daawanaya aynan haysan ma isdhihi karnaa dadkan ilaa ayaa inta badan ku dhacda jawaabtu waa muhiim fadlan jawaabtu waxaad noogu reebtaan commentska waxaan ka soo sameyn doonaa topic labaad amba mawduuceena labaad jawaabihiina ayaan doonayaa inaan bal dadka la wadaagno fikirka iyo sababta si aan xal ugu raadino sababta ay dadkani u kala tagayaan jawaabaan wad mahadsantiin